Assalaamu calaykum walaalayaal. Waxaan idin rajaynayaa soon wanaagsan iyo caafimaad qab dhammaantiinba. Muuqaalkeena maanta waa muuqaal aynu kaga hadli doono buug oo qoray qoraal la yiraahdo Robert Greene oo magaciisa la dhaho The 48 Laws of Power oo uu ku soo gudbinayo 48 xeer oo ay ka sinaayeen dadkii dunida saameynta ku soo yeeshay amaba awoodda ku soo yeeshay. ugu horreyn ninkani waxa uu ku dhashay magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka 14 May 1959. waa qoraa caan ah oo qoray buugaag saameyn badan yeeshay waxaana ugu caansan buugaagtiisa The 33 Strategies of War oo uu qoray 2006, 2 ama The 50th Law oo isna uu soo saaray 2009, 3 The Art of Seduction oo uu soo saaray 2001 iyo kan maanta daawaha inoo saaran oo la dhaho The 48 Laws of Power oo isna daabacadiisii koobaad soo saaray 1998. 48 xeer ee buugan ku qoran waxa uu ka soo dhigtay qoraagani lawxul maxfuudka shaydaanka wanacuudu billaah. dabcan waa sida uu isagu sheegay waxa uu sheegay inuu ka soo dhigtay lawxul maxfuudka shaydaanka inkastoo ay yihiin xeerar bini'aadanimada ka fog haddana waxaa kaaga dhex muuqanaysa xaqiiqo aan indhaha laga qabsan karin. waxaadna si toos ah xeerarkan uga daalacanaysaa dhaqamadii ay ku suntanaayeen dadyowgii dunida saameynta ku soo yeeshay amaba awoodda badan ku soo yeeshay. bal haddaba aynu isla eegno 30 xeer ee ugu la yaabka badan xeerarka uu ninkani buuggan ku xusay. xeerka koobaad, ha isu muujin maamulahaaga dareensi madaxdaadu inay kaa sarreeyaan adiguna aad ka hoosayso. ha u muujin kartidaada waayo waxa ay ku ridaysaa walwal ay ka qaadaan inaad beddesho mar waliba si ka badbadin leh u ammaan madaxdaada marka aad hor joogto. 2 aad ha ugu kalsoonaan saaxiibada oo bara sida loogu shaqaysto cadowgaaga. dadka kuwa kuugu dhawey si fudud ayay kuu dhagri karaan ee mar waliba ka feejignow cadowgaagusa markii aad shaqo siiso daacad ayay kuu noqon karaan. 3 qari shucuurtaada ka ilaali dadka kala deganaansho iyo xasilooni ay kugu soo weeraraan mar waliba mushkilado aysan ka lugu bixi karin ku oog. 4 wax yar dheh marka aad hadlayso hadal cufan oo aan wax badan laga fahmi karin ama lagu caajisayo dheh marka aad xafladaha joogto waayo markii aad muujiso balaaqadaada indhaha dadka oo dhan way kugu soo jeesanayaan madaxdoodana ma farxad gelinaysa inaad adigu ka hadal wanaagsanaato. 5 noloshaada oo idil waxa ay ku tiirsan tahay sumcadaada inta aad nooshahay ilaali sumcadaada marka ay cadowgaaga joogtana iyada ka weerar qofka haddii aad sumcadda ka disho si kama dambays ah ayaad uga guulaysatay. 6 qiimo walba ku bixi in aan maxkamad lagu geynin marka ay dadku badan yihiin wax walba ayaad dhexdooda ku samayn kartaa adiga oo aan xataa lagu aqoonsan. dhex joog oo ku dhuuma saxmadda iyo yabaqa dadweynaha haddiise aad gaar u baxdo si fudud ayaa lagu aqoonsan karaa. 7 adigu magaca qaado iyaguna shaqada ha qabteen. dadka xirfadda iyo aqoonta leh ku adeego oo shaqadaada ha kuu qabteen. waxba naftaada ha ku mashquulin waxaad helaysa inaad cid kale u dirato adigu guusha uun ku naallood marka ay timaado. 8 u soo jiido dadka sida shabaqa kalluunka. dabin maran ha u dhigin cadowgaaga isticmaal bakshiish ama laaluush wixii aad heli karto si ay sariiqdaada ugu soo dhacaan. 9 guulayso marka ay ficil joogto waxbase waqti ha iskaga lumin inaad doodaha ku adkaato sharaxaadaadu cid waliba ma geli karto balse ficilka ayaa ah luuqadda ay cid waliba fahmi karto. 10 u diyaari dadka inay kugu tiirsanaadaan ha barin dadku la'aanta inay noolaan karaan mar waliba qof aan laga maarmi karin noqo marka aad wax barayso xataa qaar ka reeb si aysan kaaga madax bannaanaan. 11 muuji daacadnimo gacan ku rimisa iyo diiq joogto ah si aad cadowgaaga hubka uga dhigto. waxsiintu waxa ay wiiqdaa feejignaanta iyo shakiga laga qaadi karo waxa ayna dhisi kartaa buundada kalsoonida. 12 qofkii aad caawimo uga baahan tahay ka dhex arko dantiisa waxaa la hubaa qof waliba inuu danaysta yahay laakiin lama hubo qof waliba inuu naxariis badan yahay markaa naxariis waxba ha ku doonin ama waxba ha ku raadin. 13 ugu weheliyal sidii saaxiib laakiin ha ka suulin jaajuusnimadaadii. xogtu waa waxa la isku xukumo meesha aad joogtid iyo qofkii aad la joogtidba waa fursad ee ha ku lumin waqtigaaga waxaan ahayn inaad sir hesho. 14 ka takhallus cadowgaaga mararka qaar kuma filna inaad ka guulaysato oo keliya haddii ay lagama maarmaan noqoto waa inaad dili kartaa cadowgaaga kana takhallusi kartaa. 15 mar la arag noqo in albaabkaagu furan yahay markii lagu baahdana si fudud lagu heli karo waxa ay hoos u dhigaysaa haybadaada. maqnaashahaagu waxa uu abuuri karaa hilow iyo xiiso lagu qaado
16 waxaad noqotaa qof aan lahayn kob loogu soo hagaago. Bakteeriyada marka la barto sida ay u shaqeyso ayaa dawadeeda la samayn karaa. Waxaad noqotaa qof aan la saadaalin karin sida jirjiroolaha oo kale. 17 ha samaysan qalcado iyo dhufaysyo aad ku dhuumato. Tani waxa ay keenaysaa inaad go'doonto cadowgaaga dadka ugu soo dhex dhuumo. 18 bara qofka aad tahay iyo qofka aad la dagaalami kartidba ha ku kadsoomin naftaada oo yeysan ku dhagrin awooddaadu. Markii lagaa taagroon yahayna iyaga madaxa isu geli. 19 adeegso xeeladda isdhiibidda. Markii lagu hareereeyo waa doqonnimo inaad sii dagaalanto. Isdaad raaci si aan doqonnimo ahayn. 20 si fiican u hubeen naftaada. Bara xeeladda iyo aqoonta marin habaabinta ee lagama maarmaanka ah. Si aad u cayishidna waxa aad raadsataa sac buuran oo aad weligaa maali kartid. 21 dib u soo dhalo. Waxaad yeelataa aragtida gorgorka, feejignaanta tukaha iyo sahanka goodirka. 22 marna yaan caqiidadaada iyo iimaankaaga laga shakiyin. Dadku haddii ay ogaadaan inaadan rumaysnayn waxa ay rumaysan yihiin, waxa ay ku arkayaan cadow. taas beddelkeedana waa ay ku jeclaanayaan haddii aad u muuqato qof taqi ah. haddii aad awooddo wax ka deji waxa ay rumaysan yihiinba. 23 wax waliba xamaasad ku gal, wax aadan hubinna ha samaynin. dadka xaqiiqaha u sheegin laakiin si xamaasad leh ula hadal. waayo dadku ma jecla kuwa fakira iyo kuwa wahsadaba, laakiin waa ay jecel yihiin dadka xamaasadda badan. 24 guulahaaga ka dhig kuwo iska caadi ah. qari guulahaaga oo qofna ha la wadaagin sida ay ku suura gashay guushaadu. hana muujin weligaa inaad dadaal dheer u soo gashay. 25 ku taagnow habkaaga ugu dhaqan sidii boqorradii. haddii aad ogolaato inaad hoosayso, hoos ayaa lagu eegayaa. ileen madaxda ayay ixtiraamaan. 26 bara xeeladda waqtiga. murtida ay saacaddu leedahay waa in aysan wax waliba mar keliya wada dhicin. ha degdegin ee wax waliba sug waqtigooda saxda ah. 27 argoosigu ma ahan cabqarinimo. shayga ura ee guusha fashiliya waa argoosiga. guuldaradana waa uu soo dedejiyaa. cadowgaaga oo aad sheegtaana waxa ay kordhisaa awooddiisa. wixii aad samaynayso mugdi ku samee, marna yuusan muuqan khaladkaagu. 28 sida aad rabto u fakir, laakiin sida ay rabaan samee. dadku ma doonayaan inaad ka duwanaato. waxa ay weyneeyaan weyne oo sida ay u hadlaan u hadal si aad uga mid ahaato. 29 ka fogow qadada lacag la'aanta ah. waxyaabaha bilaashka ah aad bay u khatar badan yihiin. ka cudur daaro in lagu casuumo iyo in abaal lagugu yeesho labadaba. 30 oo ah qodobka u dambeeya aynu ku soo gabagabeyn doono waxa uu odhanayaa qoraagu adhi jirka la dagaalan si uu adhigu u kala yaaco amaba ugu kala firdhado.